Bismillahirrahmanirrahim. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Saaxiibayaal daawadayaal meel walba waa joogtaan iyo si walba muuqaalkii idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa bartaan YouTube-ka ku leenahay run sheeg. Saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa kamid ah Villa Soomaaliya oo dhabarka ka jabisay Siciid Deni iyo Axmed Madoobe. Galmudug oo baacsanaysa dadkii bohol uga qayb galay dhoolatuska ee Sunna iyo sarkaal ka soo goostay Al-Shabaab iyo hubkiisa oo la soo bandhigay. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadayna ugu xiran idiin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi raali ka noqdo. Fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan, like-na ay nagu dhiirigelisaan, gambaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle. Saaxiibayaal si hordhac warkayga baad ku daawateen haddaynu ku bilowno. Villa Soomaaliya ayaa dhabarka ka jabisay hogaamiyaha Puntland Siciid Deni iyo sidoo kale Axmed Madoobe hogaamiye Jubbaland. Xogo uu helay Run Sheeg TV ayaa sheegay in doorashadii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo ay ku tartameen 10 musharax ay abuurtay isbedel siyaasadeed oo cusub. Doorashada ayaa waxaa wareegii koowaad ugu codad batay 4 musharax oo codadka u kala helay sida tan Maxamed Weli Cabdalle Axmed oo helay 59 cod, waa xildhibaanka cusub baarlamaanka isla markaana ku fadhiyay kursiga Cabduuli Muudey oo loo diiday in uu halkaasi u safro waa Braawe maadaama uu ka soo horjeesaday nabad iyo nolol. Maxamed Cali Cumar Cananuug waxa uu helay 58 cod, waxa uu ka soo galay maamul goboleedka Jubbaland waxaana taageerayay Axmed Madoobe iyo Siciid Deni. Taageeradaas oo ku dhisnayd heshiis hoosaad hore oo dhexmaray labada maamul Puntland iyo qaadato gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare iyo in Jubbaland ay hesho gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare, balse siyaasadii ayaa dhinaca kale isku rogtay maadaama siyaasadu aysan ahayn wax mar walbaba sida aad adigu rabto ku yeelaysa. Saacadiya Yaasiin Xaaji Samadsar waxay heshay 52 cod, waxayna deegaan doorashadoodu ay tahay Puntland. waxay si lama filaan ah isu soo sharaxday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka baarlamaanka taasoo meel ka dhac ku ahayd heshiiskii ay horey u gaareen Puntland iyo Jubbaland kana hortimid dalab uga yimid Siciid Deni kaasoo hordhigay inay ahayd in aysan is sharxin. Khadiija Maxamed Diiriye oo noqotay khiyaanooley 22 cod, waxaana dhisayay kutlatu hogaaminaya Hadan Saransoor waxayna ka goosatay nabad iyo nolol. waxaa dhacday in Maxamed Weli Cabdalle Axmed oo horeeyay codadka ugu badan ee xildhibaanada oo si lama filaan ah ugu tanaasulay Sacdiyo kadib dalab kaga yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaasi ka dhex arkay fursad aad u qiimo badan. Deni oo diidan sida ay wax u socdaan xadgudubna ku ah heshiiskii siyaasadeed ee Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa uu xiriir la soo sameeyay Khadiija Maxamed Diiriye isagoo u ballan qaaday lacag si ay codadka ugu tanaasusho. Cananuug oo Jubbaland ka socday isagoo oo ugu talagalay in uusan burburin heshiiskii maamulada. Khadiija ogolaatay dalabka Deni ayaa waxa ay u tanaasushay Cananuug iyadoo kaamiraduhu qabanayaan, waxayna cod dheer ku tiri iyadoo farta ku fiiqaysa aniga iyo beene codkeena waxa uu aadayaa Cananuug, taasoo ay ugu danaynaysay hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, balse ma oga in halkaasi nabad iyo nolol meeshaasi ay fursad qaali ah uga soo baxday oo ay dhinaca ay wareegaan xildhibaan Saacadiya Yaasiin oo taageero ka heshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Saaxiibayaal siyaasadda Soomaaliya ayaa daqiiqad walba isbedelaysa. Saacadiya Yaasiin hore waxay u ahayd mucaaradka kuwooda ugu afka dheer, balse maanta waa muxaafidka loogu doonista badan yahay. guuldarada Cananuug ku habsatay oo sababteeda ay lahayd Khadiija Diiriye iyo sidoo kale Siciid Deni ayaa dhanka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa uu cadow u arkay in Cananuug oo Axmed Madoobe taageeraya uu ku soo baxo codadka u wareegeen dhinaca kale ee xildhibaanad Sacdiyo maadaama Axmed Madoobe iyo Siciid Deni rabo in laga dhex shaqeeyo oo meeshaasi ay ku kala jabaan. Saaxiibayaal taasi waxay guul u tahay nabad iyo nolol maadaama meel bannaan ay fursad qaali ah ka heleen taasoo aan la dayici karin. Nabad iyo nolol ayaa hadda u muuqata in si lama filaan ah ay guul kaga gaarayso doorashada baarlamaanka. Doorashada Soomaaliya iyo tartankeeda ayaa daqiiqad walbaba isbedeli kara iyadoo qofkii kula safnaa hadda uu dhinaca kale kaaga soo jeesanayo. taageerayaasha nabad iyo nolol
ayaa aada u dhaliilaya Khadiija Diiriye taasoo sameysay wax aan siyaasiyiinta qaarkood xitaa kuwa lacagta ku shaqeeya aysan ka suuroobin, balse dadka siyaasadda falanqeeya ayaa tilmaamaya in Khadiija Diiriye ay siyaasadda kaga bixi doonto qaab fool xun oo aan qof bil aadan ah horay loogu sameynin. Qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa kamid ah Galmudug ayaa weli baacsanaysa dadkii boqol uga qayb galay dhoolatuskii kooxda Elusunna ay halkaasi ku sameysay. Waxaa magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb ka bilaabatay qabashada dadkii maalmo ka hor tagay deegaanka Bohol halkaas oo fariisin u ah ciidamada Elusunna wal Jamaaca. ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ka howlgalaya magaalooyinkaasi ayaa saacadihii u dambeeyay soo xiray dad badan oo loo haysto inay Bohol uga qayb galeen xaflad weyn oo ay dhigeen kooxda Elusunna. dadka la baacsanayo ayaa deegaanka Bohol uga qayb galay munaasabad Elusunna ay u sameysay ciidamadii uga shahiiday dagaaladii ay kooxda Al-Shabaab kula galeen gobolada dhexe dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay. ciidamada booliiska iyo nabad sugidda Galmudug oo adeegsanaya macluumaad gaar ah iyo tixraacyo sawirro iyo muuqaalo laga soo duubay munaasabada ka dhacday Bohol ayaa Gurceel iyo Dhuusamareeb ka bilaabay qabashada dadkaasi. dad isugu jira haween, caruur, dhalinyaro xirow ah ayaa xabsiyada labada magaalo loo taxaabay, kuwa oo qaarkood lagu eedeeyay in Elusunna hil dhaqaale ku taageereen. sanad kasta 17 bisha barakeysan ee Ramadaan Elusunna ayaa dhigta munaasabad weyn oo ay ku xusaan shahaadadii looga dilay dagaaladii qaraaraa ay la galeen Al-Shabaab. hase yeeshee munaasabadii sanadkan ka dhacday Bohol ay ku muujiyeen cudud military oo laga fili karo kooxda. waxaa xamaasadeysan fariin dagaal oo ay wajahayaan Galmudug iyo Al-Shabaab oo labaduba awood hortaagan xukunkooda. waxay soo bandhigeen dhalinyaro aada u hubeysan kuwaasoo ku hubeysan qoryaha BKM iyo AK47. waxaana Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo munaasabadaasi ka qayb galay sheegay hadalla kicin dadweyne u muuqday isaga oo dhaliil weyn u soo jeediyay Al-Shabaab, Galmudug iyo dowladda dhexe intaba. qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa kamid ah taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Koonfur Galbeed ayaa soo bandhigay sarkaal la sheegay inuu kasoo goostay Al-Shabaab kaasoo lagu magacaabo Ciise Cumar Deerow Isxaaq. sarkaalkan ayaa la sheegay in Al-Shabaab u qaabilsanaa weerarada isagoo kooxda ka tirsanaa muddo 8 sano ah sida uu sheegay. waxaan amiir ama hogaamiye u ahaa koox jabcada ah oo gaaraysa tiro ahaan 400 ayuu yiri Ciise Cumar Deerow Isxaaq. waxaana intaasi ku daray inuu qayb ka qaatay dagaalo dhowr ah oo ka dhacay magaalooyinka ama gobolada Jubbooyinka Baay. waxaana sidoo kale hay'adda nabad sugidda ay soo bandhigtay hub uu kala soo goostay Al-Shabaab oo ay kamid yihiin 2 qori oo AK47 ah iyo 1 BKM. waag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa warkii aad ka daawaneysaan Runshaag TV. wadana haddii aad ugu cusubtihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan, laakiin ay nugu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyey aad u heshaan idinka alleh. بسم الله